Jubbaland ayaa heshiis la gashay ciidamadii ka baxay duleedka magaalada Baydhabo ee sida gaarka u taageersanaa madaxweynihii Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. Itoobiya heshiiskaas qayb ayaa la tilmaamay inay ka tahay, haddaba maxaa looga hadlay sababaha ugu waaweyn iyo ujeedka ugu weyn ee heshiiskaasi? Ma saxba in Jubbaland iyo madaxweynihii xilka awoodda looga tuuray ee Koonfur Galbeed ay iska kaashanayaan ammaanka guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed oo mar kale dib loo abaabulayo dagaal ka dhan ah dawladda federaalka ah ee Soomaaliya? Awdiinle ciidanka dawladda ayaa si rasmi ah ula wareegay xaaladda siyaasadeed ee Jubbaland iyo sidoo kale dawladda dhexe, xiriirka Koonfur Galbeedii hore iyo midda hadda ka dhaxeeya, iyo sidoo kale Jubbaland waxyaabaha ay kaga aadan Puntland oo looga dhawaaqay dagaal ka dhan ah dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa. saaxiibayaal soo dhawaada, haddii ay tahay markaa kugu horeysay aad soo booqato nagu soo biir, saaxiibada la sii wadaag qaybta hoose ee faaladana aragtidiina nagula wadaaga. mar kale soo dhawaada saaxiibayaal, channelkeena subscribe dhaha si aad u heshaan wararka degdega iyo warbixinada la xiriira arrimaha siyaasadda iyo sidoo kale arrimaha bulshada. mar kale soo dhawaada, aynu ku bilowno dhinaca iyo sidoo kale Puntland. hanjabaado kala duwan ayaa soo baxaya oo ku aadan dhinaca dawlad goboleedka Puntland kaga imaanaya dawladda dhexe ee Soomaaliya. waxaa xogta iyo wararka aan helayno ay sheegaysaa in saacadihii la soo dhaafay halkaas ay ka dhaceen kulamo siyaasadeed oo gaargaar ah oo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu la qaadanayay odayaasha dhaqanka, qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale guud ahaan saraakiisha ciidamada dawlad goboleedkaasi Puntland oo siyaabooyin kala duwan halkaas uga sugan. waxaa wararka aan helayno ay sheegaysaa ama ay sheegayaan in saacadihii la soo dhaafay Puntland si gaar ah mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradaha kala duwan ee halkaasi markaasi ka howlgala in dawladda federaalka Soomaaliya loogu baaqay in ay ka digtoonaato, sidoo kalena waxa hadda ay dalka ka wado aysan macquul ahayn. waxay wararku sheegayaan in xaaladihii ama maalmihii la soo dhaafay ay socdeen abaabulo iyo sidoo kale hanjabaado ku aadan in Puntland ay u dirisay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. hanjabaadahaas oo ku aadan in muddaxileedka hay'adaha dastuuriga ah ee dalka guud ahaanba uu soo dhamaaday, xilligaana aanan loo dulqaadan karin wax la xiriira muddo kororsi waxa ay ku sheegtay inay yihiin sharci darro. sidoo kale waxaa la warinayaa in xaaladda marka ka sii dambeysa dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Puntland khilaafkooda uu cirka isku sii shareerayo, xilli kastana laga cabsi qabo inuu dagaal markaasi ka dhex qarxo, maadaama hadda culaysyo siyaasadeed oo aad u xoogan uu ka dhex jiro dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland. si rasmi ah aanan loo ogeyn waxyaabaha ugu waaweyn ee xilligan sida gaarka ah ay isugu haystaan, marka laga reebo in dawladda federaalka Soomaaliya muddo hal sano ah oo muddo kororsi ah ay doonayso inay qaadato. 15 May waxa ka harsan waa maalmo wax ka yar waliba 25 maalin kaliya. hadda waxaa la warinayaa in 22 maalin ay kaga hartay hay'adaha dastuuriga ee dalka, gaar ahaan xafiiska ugu sarreeya ee dalka. haddaba dhinaca kale haddii aynu eegno khilaafkaasi Puntland iyo sidoo kale Jubbaland u dhaxeeya, waan iraahday Puntland iyo dawladda dhexe, waxaa jira khilaaf kale oo aad u culus oo iyadana ka dhaxeeya Jubbaland iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya. khilaafkaas saameyn xooggan ayuu yeeshay ilaa ay dagaalamaan labada dhinac. dawladda federaalka ah ee Soomaaliyana looga soo adkaado dagaal toos ah oo ay ku qaaday Raskamboni oo Jubbada Hoose iyo Gedo qayb ka mid ah oo ay ku adkaatay dawladda dhexe ee Soomaaliya. marka laga soo tago umurahaas iyo idil, waxaa jira maalmihii la soo dhaafay inay jireen ciidan la tilmaamay inay ka amar qaadanayeen madaxweynihii hore ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, kadib markii awoodda ciidan looga saaray maamulkaasi Koonfur Galbeed ee Soomaaliya si gaar ah magaalada Baydhabo oo fadhi u ahayd madaxweynuhu. waxaana la warinayaa in ilaa iyo hadda ay socdaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo weliba loogu doonayo in weerar kale lagu soo qaado deegaanada Koonfur Galbeed si gaar ah gobolka Bay oo ay ku sugan yihiin ciidamadii ugu badnaa oo dawladda federaalka Soomaaliya halkaasi ka jooga. saacadihii la soo dhaafayna la sheegay in siyaabooyin kala duwan ay markaasi isaga kala gooshayeen qayb ka mid ah gobolada maamulkaasi si gaar ah Bay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose oo iyadana laga cabsi qabo inay ka bilowdaan abaabulo ka dhan ah dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. inkastoo hadda ay jiraan dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo la xiriira arrimaha dawladda federaalka Soomaaliya si gaar ah doorashooyinka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. waxaa jira ciidan ka baxay Awdiinle oo la tilmaamay inay ka mid ahaayeen ciidankii sida gaarka u taageersanaa madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen in weerar culus lagu qaaday oo laga saaray Awdiinle ilaa iyo Bardaale. inta markaasi ciidamadan ay sii socdeen la tilmaamay inay wado ku sii jireen ilaa iyo hadda, inkastoo aan xogtooda rasmiga ah la helin ciidamadan iyo halka sida gaarka ay ugu sugan yihiin, haddana waxaa xogta iyo wararka aan helayno ay sheegaysaa in ay gudaha u galeen halka lagu magacaabo Bohol ilaa iyo Doolow
oo Jubbaland markaasi ka tirsan si gaar ah la tilmaamay inay u degan yihiin reer ahaan dad ka soo jeeda maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. marka laga soo tago waxaa jira in arrimahaasi oo idil ay socdeen saacadihii la soo dhaafay kulamo gaargaar ah oo u dhaxeeyay saraakiisha ciidamadaasi hogaaminaysa iyo sidoo kale kuwa ku sugan gudaha degmada Doolow ee gobolka Gedo iyo guud ahaanba deegaanada kale ee hoostaga gobolkaasi iyadoona si gaar ah la tilmaamay in saacadihii la soo dhaafay ay u dhaceen kulamadaas oo si gaar ah diiradda loogu saaray xaaladda la xiriirta maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. inkastoo aan xogta rasmiga ah la helin haddana waxaa jira heshiis hordhac ah oo ay wararku sheegayaan in laga gaaray ciidamadaas iyo sidoo kale ciidan ka tirsan kuwa Jubbaland ee la tilmaamay in iyagana heshiiskan ay qayb ka ahaayeen oo waliba maamulkaasi Jubbaland uu qaatay heshiiskan. marka laga soo tago waxaa sidoo kale jira in kulamadan ay wehelinayeen ama ay qayb ka ahaayeen saraakiisha ciidamada Itoobiya ee ku sugan gudaha maamulkaasi Jubbaland si gaar ah gobolkaasi Gedo gaar ahaan degmada Doolow iyo nawaaxigeeda halka lagu magacaabo Suufka ayaana la tilmaamay inta badan ciidamadan Jubbaland in la isugu geeyay oo ah xuduudda waa saddex xagal xuduudeed oo xiriirisa saddexda wadan ee kala ah Itoobiya, Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya. deegaankaas waxa uu kamid yahay deegaanada dhowrka ah ee ciidamada dawladda Kenya, kuwa Itoobiya iyo kuwa dawladda federaalka Soomaaliya si gaar ah kuwa maamulka Jubbaland ay ugu sugan yihiin. waxaana jirta dhaqdhaqaaq ciidan oo saacadihii la soo dhaafay halkaasi ay ka sameeyeen ciidamada maamulkaasi Jubbaland iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed ee ka baxay gudaha degmadaasi lagu magacaabo Awdinle ee gobolkaasi Bay. waxaa sidoo kale jira in xaaladdu hadda ay tahay mid si cakrimaysa wadahadalladaas intooda badan waxaa la sheegay in diiradda lagu saaray sidii ciidamadan si ammaan ah ay ugu sugnaan lahaayeen qaybo ka mid ah gobolka Gedo. waxaa sidoo kale la weydiiyay mowqifkooda ku aadan dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland laakiin ciidamadan intooda badan waxaa la tilmaamay inay qaateen mowqif adag oo ah in Jubbaland si gaar ah ay u garab istaagi doonaan haddii ay dhacdo in dawladda federaalka Soomaaliya duulaan ay ku qaado fariisimaha ciidamadan ay ku leeyihiin halka ay ku sugan yihiin oo Doolow ay ugu horeyso. Doolow waxa ay kamid tahay deegaanada istiraatiijiga ah ee xilligan hubka ugu culus Jubbaland uu ka yaalo iyadoona sidoo kale la warinayo in maalmihii la soo dhaafay ilaa saacadii ugu dambeeyay ciidamo kale oo dheeraad ah oo kuwa taageersan maamulka Jubbaland ah ay gaarayeen halka sidoo kalena ciidamadii kale ee ka baxay Awdinle ee Koonfur Galbeed madaxweynaheedii hore ee Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen si gaar ah ay markaasi ugu garab siinayaan. marka laga soo tago umurahaasi oo idil saaxiibayaal heshiisyadaas iyo sidoo kale guud ahaan dawladda Itoobiya oo la warinayo inay qayb ka noqotay xaaladda xilligan ka taagan ee maamulkaasi Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Jubbaland oo dawladda dhexe ee Soomaaliya heshiis aysan ahayn haddana wali waxa muuqata in Itoobiya xilligan ay si toos ah ugu hoggaansantay amarka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. Doolow iyo ciidamadaasi guud ahaanba hubkaasi culus ee la tilmaamay inay gudaha ula galeen ciidamadan aan kaga talaabne aynu eegno markan dhinaca kale haddii aynu fiirino waxaa magaalada Muqdisho ee caasimada dalka la sheegaya in laga diray ciidamadii ugu badnaa oo ka tirsan kuwa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya sidoo kalena tagay meelo badan oo ka tirsan maamul goboleedyada dalka haba ugu badnaatee maamulka Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle qaybo kamid ah oo la warinayo in doorashooyin la filayo oo waliba isku sidkan inay ka dhacaan oo saddexda maamul ee Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed iyadoo ilaa iyo hadda xaalka la bixin laayahay oo dhinaca Koonfur Galbeed wili doorashooyinkooda dood adag ay ka taagan tahay Villa Soomaaliya ay ku adkaatay kala xulashada laba musharax oo kala Xuseen Sheekh Maxamuud la taliye sare oo xafiiska madaxweynaha ka tirsan sidoo kalena xogeeyo ku xigeenka xisbiga lagu sheegay JSB markaasi ah isla sidaasi oo kale iyadana dhinaca kale Aadan Madoobe oo isagana gudoomiyihii baarlamaanka ahaa oo xilliga musharax madaxweyne Koonfur Galbeed inkastoo hadda wararka aan helin ay sheegayaan in Aadan Madoobe loo xushay wakiilka gaarka ee Koonfur Galbeed ee xisbiga JSB iyo musharaxa iyadoona hadda la warinayo in guud ahaanba kulamo ay bilowdeen kuwaasi oo ka dhana dawladda dhexe ee Soomaaliya sidii Aadan Madoobe halkaasi looga saari lahaa. guudaan saaxiibayaal wixii ku soo kordhay xaaladda siyaasadeed ee maamulkaasi Koonfur Galbeed, Jubbaland, Hirshabelle ilaa Galmudug ilaa magaalada Muqdisho barnaamijyada wararkan dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa ilaa dhamaadka deena la soo gaartay subscribe dhaho qaybta hoose ee faaladana aragtidiina nagula wadaaga saaxiibayaal sidoo kalena muuqaalkan meel dheer naga gaarsiiyo oo saaxiibadana la sii wadaaga.